barasabka gobolka Togdheer Maxamuud Cali Salebaan Ramax ayaa ka hadlay koox dhaqaatiir oo weeraray suduwaha wasaaradda caafimaadka gobolka Togdheer kadib markii uu shalay tole saxaafadda u sheegay suduwaha wasaaradda caafimaadka Togdheer in kooxdan dhaqaatiirta ay ku soo weerareen xafiiskiisa ayaa barasabka gobolka Togdheer Maxamuud Cali Salebaan Ramax oo la hadlayay saxaafadda waxa uu sheegay in weerarkaasi lagu qaaday suduwaha inuu ka hadlaabo qalad bay ahayd qoraal baan kaga jawaabay arintaas markayna soo gaadhay waxa weeyaan dad buu shaqo ka joojiyay dadka uu shaqada ka joojiyay uu muu marin sifii sharciga ahaa cabatin markay uu la yimaadeen hadalla taagtaagan inay dhex mareen waa laga yaabaa meesha taala wasaaraddu waxay leedahay marka cid laga cabanayo xeer bay u leedahay in xeerkeedii la mariyo annaguna tiimun baanu u marnay isaga iyo dhaqaatiirta kale waxaan ugu dalbanay in wasaaraddii ay tiim soo dirto in la eego hawsha ka dhex taagan inta ka horeysana shaqada sidii bay u soconaysaa dhaqaatiirtuna shaqadooda way wadanayaan isagana waxaan uga digayaa inuu mar dambe warbaahinta isla soo taago waxyaabaha caynkaas oo kala hadduu tallaabo dambe qaadana annaga tallaabo ka qaadana sidoo kalena barasabka Togdheer oo la weydiiyay mas'uuliyadda amniga suduwaha caafimaadka ayaa sheegay inuusan mas'uul ka ahayn amniga suduwaha caafimaadka gobolka Togdheer ma qabno waa gardarro iyo fidmo aad doonaysaan idinku inaa meesha ka dhex abuurtaan iyo isagu fiiga kaga hadlayay sifa qaldan bay ahayd xaqna uu mu lahayn dhinaca kalena suduwaha caafimaadka gobolka Togdheer Dr. Yusuf Dirir ayaa beeniyay in 7 shaqaale ah uu ka joojiyay shaqada isla markaasna uu xaq u leeyahay in la damaanad qaado amnigiisa iyo inaan la caburin karin oo saxaafadda u sheego siday wax u jiraan waxaana hadaladiisii ka mid ahaa intii aan falku dhicin cid aan shaqada ka joojiyay ma jirto labada nin ee laygu khasbayay ee laygu lahaa khasbad ku shaqaaleynaysa labada ninba shaqaale dawladeed weeyaan mid wuxuu ka shaqeeyaa Oodweyne midna waa ciidanka militariga 7 qof oo aan shaqada ka joojiyay intii aanu falkan u dhicin ma jirto haddii cadaynteeda uu keenayo barasabku ha keeno anigu shaqada waxaan ka joojiyay 3 nin ee cusbitaal ka shaqeynayay ee ku jiray dagaalka ayaan falka kadib markii waxba 24 saacadood aan sugay cid waxba ka qaban weeday leena la soo hadlay waayay ayaan anigu shaqadii ka joojiyay 3 nin waayo 3 nin oo qabyaalad ku hadlaya oo dhakhtar ah kuma aamini karo beeshanadeyda aniguna wax sharci darro ah kuma kacayo oo kama jawaabayo nin qof la soo weeraray ayaan ahay victim baan ahay shaqaale dawladeed baan ahay qof mas'uul baan ahay iyadoo sabab la'aan lagu soo weeraray iyo hab qabiil oo qorsheysan waa nasiib darro inuu barasabku dhinaca kale ka soo jeesto la ixtiraamo in nidaamka dawladnimo la ilaaliyo in la iska daayo wixii kasta oo sharci jabina in muwaadiniinta la sugo ammaankooda oo nabadgelyadooda ay xaq u helaan iyo xorriyadooda in aan la caburin dadka marka ay runta sheegaan ee waxba loo qaban waayaan xaq bay u leeyihiin inay dacwoodaan oo midiya tagaan waa Yalla Xasan Salebaan ayaa la BMTV-ga caalamiga Somali News magaalada Burco.